Vladimir Putin waa mid ka mid ah hogaamiyayaasha ugu awoodda iyo saameynta badan adduunka, ka oo kursiga madaxweynaha dalka Ruushka ku fariistay 2012 ka horna 1999 ilaa 2012 ahaa ra'iisul wasaaraha dalkaas. Waa hogaamiyaha ugu muddaxilaadka dheer dalalka Yurub marka laga yimaado Alexander Lukashenko Belarus. Muuqanse uga sheekayn mayno taariikh nololeedkiisa, ha yeeshee kaliya waxaynu kuugu bidhaaminaynaa 8 xaqiiqo oo aadan ka ogeyn ninkan ka hor inta uusan siyaasadda ku biirin ahaa sarkaalka sare ee sirdoonka ah. 1. mulkiilaha koox kubadeeda Mareykanka ka dhisan ee New England Patriots oo sheegay in Putin uu ka xaday fargal Super Bowl ah. kadib markii mulkiilaha kooxdan Roberto Kraft booqday dalka Ruushka sanadkii 2005 wuxuu Putin tusay fargalkiisa qiimaha sare jooga ee Super Bowl 39. ninkan ayaa yiri Vladimir intuu qabsaday fargalkayga ayuu yiri kan cid uun ayaan ku dili doonaa. kadib jeebkiisa ayuu ku riday fargalkan jooga $25,000. sanado kadib Senator John McCain ayaa ka codsaday Putin inuu Mareykanka dib ugu soo celiyo fargalka, hase yeeshee Vladimir waa uu inkiray inuu weligiisba arkay fargalkaasi, balse shabakadda New York Times ayaa waristay in fargalka lagu camiray masxafka kriminalka. 2. aqalka kriminalka oo ka been sheegay hantida uu khaaska u leeyahay madaxweyne Putin. guriga dalka looga arrimiyo ee loogu yeero kriminalka ayaa si cad uga been sheegay raasumaalka hogaamiyaha dalkan, iyadoo warbixin lagu baahiyay bogga rasmiga ah ee aqalka lagu sheegay in Putin uu leeyahay kaliya 3 gaari oo lagu sameeyay gudaha Ruushka, guri deegaan oo ku fadhiyo 77 mitir square, garaash iyo dhul kale oo aan badnayn. hase yeeshee xog kale oo laga helay qoyska Putin ayaa sheegtay in ninkani uu leeyahay 20 gaari, 58 diyaaradood oo khaas ah iyo in ku dhow 700 oo gaadiid kale oo qaali ah. 3. Putin waa hogaamiyaha ugu waqti ilaalinta fiican xilliga ballamaha muhiimka ah. ninkani waxa uu ku adag yahay ka taxadarida waqtiga marka uu la kulmayo dadka muhiimka ah. tusaale ahaan markii Pope Francis dalkan ku tagay booqashadiisii ugu horeysay, Putin in ka badan 1 saac ayuu ka soo hormaray waqtigii jadwalku ahaa. wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayuu sugayay mar muddo ku dhow 3 saacadood kulankoodii 2012, halka sidoo kale uu muddo dheer ka soo hormaray waqtigii ballanta kulankiisii boqoradda Ingiriiska ee Queen Elizabeth II. habdhaqankan ayaa la sheegaa inuu yahay mid caado u ah hogaamiyaha Ruushka, taas oo uu ku muujinayo sida uu ugu adag yahay ilaalinta waqtigiisa. 4. waxaa la rumaysan yahay inuu haysto balaayiin dollar. marka laga hadlayo hantidiisa lacageed, si dhab looma oga taasi, waayo ma jirto xog rasmi ah oo daah qaaday arrintan. hase yeeshee sarkaal sare oo ka tirsanaa dowladda Ruushka ka oo Putin u qaabilsanaa arrimo la talineed ayaa ku qiyaasay raasumaalkiisa lacageed 200 ilaa 300 milyan oo dollar, taa oo ka dhigaysa mid ka mid ah hogaamiyayaasha maalqabeennada ah ee adduunka. dhaqaalaha ugu badanna waxa uu ka soo galaa shirkado shidaal oo qarsoodi ah. 5. saaxiibtinimada Putin iyo jilaaga Mareykanka ah ee Steven Seagal. Putin waxa uu saaxiib dhow la yahay Steven Seagal oo ah jilaa iyo nin ku caan ah ciyaarta Marshallka loo yaqaano, ka oo ka soo jeeda dalka Mareykanka. xog ayaa tilmaantay in Putin uu mar ka dalbaday madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Barack Obama inuu Seagal u magacaabo qunsul sharafeed Ruushka u jooga dalkaas, ka oo door ku yeesha hagaajinta xiriirka labada dal, balse Obama ayaa arrintaasi kaftan ahaan u qaatay. 6. isugeynta qiimaha lacageed ee saacadihiisa oo dhan $700,000. Putin waxa uu isticmaalaa 4 saacadood oo ay leeyihiin shirkadaha saacadaha sameeya kuwooda ugu qaalisan, waxaana isugeyn 40 saacadood qiimahooda lagu qiyaasay $700,000. 7. Vladimir wuxuu furay xaaskiisii hore kadib markii lala xiriiriyay inuu saaxiib dhow la yahay gabadha wadata biladda Olombikada ee Alina Kabayeva. inkastoo nolosha qoyskiisu ay tahay mid qarsoon ninkan, haddana waxaa la sheegay in xaaskiisii hore ee lagu magacaabi jiray Ludmila oo uu guursaday sanadkii 1983, isla markaana u dhashay 2 gabdhood uu u furay arrin la xiriirta saaxiibtinimo la wariyay inay dhex martay isaga iyo gabadha jilaaga ah ee haysata biladda jimicsiga ee Olombikada ee lagu magacaabo Alina Kabayeva. Alina ayaa dhashay wiil iyo gabar la sheego in Putin uu aabahood yahay, balse ilaa 2009 oo haasawahooda la wariyay xiriirkoodu waa mid qarsoon. 8. wuxuu leeyahay state dhismihiisu ku kacay $1 bilyan ka oo ku yaala xeebta badda madow. inkastoo aqalka kriminalku uu diiday lahaanshaha Putin ee gurigan, haddana rugtan aan caadiga ahayn ee laga yagleelay xeebta badda madow waxa la wariyay in Putin uu iska leeyahay, waxaana dhismaha loogu magac daray Putin Place sida warbixinuhu ay tabiyeen. dowladdu
waxa ay dhab u qarisay gurigan $1 bilyan dhismihiisu ay ku baxday, balse sawirro ayaa muujiyay inta dhismaha baaxadiisu leeg tahay ka oo ka kooban beero waaweyn, masraxyo, 3 garoon oo diyaaradaha helicopterka loogu talagalay, kaniisado, xarumo kafee, waaskooyinka dabaasha iyo goobo kale oo raaxo.